halkan waa Muqdisho Soomaaliya oo aad kala socotaan BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya kaasoo aad habada si toos uga dhageysanaysaan. maanta oo ah maalin axad taariikhda milaadiguna ay ku beegan tahay 22 bisha May 2016 taariikhda hijriguna ay ku beegan tahay 15 bisha Shacbaan 1437 waxaad ku soo dhawaataan warkii saacadlaha. suuqyada magaalada Muqdisho ayaa laga dareemayaa diyaar garow xoogan ee ku aadan bisha barakaysan ee Ramadaan waxaana suuqa dhexdiisii lagu dhex arkayay dad badan oo kala iibsanaya alaabaha sida gaarka ah loo isticmaalo bisha barakaysan ee Ramadaan waxaana sidoo kale suuqyada magaalada Muqdisho soo buux dhaafiyay timirta noocyadeedii kala duwan ayadoona ay dadku aad u iibsanayeen. diyaar garowgani xoogan ee laga dareemayo suuqyada magaalada Muqdisho ayaa imaanaya kadib markii ay maalmo kooban ay ka hartay dhalashada bisha barakaysan ee Ramadaan. madaxa bangiga adduunka ayaa sheegay in ay sameeyeen mashruuc dhaqaale ee gaaraya $500 milyan oo dollarka Mareykanka ah kaasi oo uu sheegay in ay ugu talagaleen in ay wax ugu qabtaan cudurrada faafa ee wadamada saboolka ah aafeeyay. sidoo kale madaxa bangiga adduunka ayaa sheegay in mashruucani ay la kaashan doonaan hay-adda caafimaadka adduunka ee WHB waxa ayna wararku qaar sheegayaan in mashruucani laga bilaabi doono wadamada caalamka ugu saboolsan kuwaasoo ay saameeyeen cudurrada faafa. wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. diyaaradda Egypt Air oo maalintii Khamiista ku burburtay badda Mediterranean-ka ayaa ilaa iyo hadda aan la garanayn sababihii ay u burburtay ayadoona ay weli ku socoto baaritaan xoogan. baarayaasha baaraya diyaaradda Egypt Air oo u dhashay dalka Masar ayaa sidoo kale sheegay in diyaaradda inta aysan hawada ka bixin daqiiqado ka hor ay arkeen qiiq ka soo baxaya diyaaradda. sidoo kale baarayaasha Masaarida ayaa sheegay in diyaaradani burburkeedii waxa sababay aysan wax jawaab ah ka bixin karin ayagoona sidoo kale sheegay in ay wadaan baaritaan xoogan oo ay ku doonayaan in ay ku ogaadaan sababaha ay u burburtay diyaaradani iyo meesha ay ku dambeyso. madaxweynaha wadanka Masar ayaa sidoo kale sheegay maanta oo maalin axad maraakiibta loo yaqaano submarine kuwaasi oo uu sheegay in ay baaritaan ku hayaan burburka diyaaraddaasi. maraakiibtani ayaa biyaha hoostoodii u gali kara ilaa iyo 3000 mitir. madaxweynaha Masar Cabdilfataax Asiisi ayaa sidoo kale u mahadceliyay dhammaan dowladihii ka saaciday raadinta burburka diyaaraddaasi. beerta Santiago oo lagu xanaaneeyo xoolaha ee ku taala caasimadda Chile ayaa nin dhalinyaro ah oo daadiisii lagu qiyaasayo 20 jir isku dhex tuuray xero ay ku jireen libaaxyo. wararka ka soo baxaya ninkani 20 jirka ah oo lagu magacaabo Francisco Freda Roman ayaa sheegaya in uu asagoo qaawan uu isku dhex tuuray xerada lagu xanaaneeyo xoolaha waxa ayna wararku sheegayaan in markii uu isku tuuray xerada oo ay ka buuxeen libaaxyo ay isla markiiba ay ku soo ordeen 2 libaax waxa ayna isku dayeen in ay cunaan hase yeeshee waxa markiiba 2 libaax xabado ku furay ilaalada beerta si ay u badbaadiyaan wiilka 20 jirka ah oo halkaasi isku tuuray. sidoo kale waxa halkaasi u soo daabasho tagay dad badan oo doonayay in ay ogaadaan halka ay ku dambeynayso xaaladda ninkani. Master Roman ayaa soo gaaray dhaawac waxaana isla markiiba lala orday isbitaal ku yaala halkaasi.
wali halka aad nagala socotaan waa BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. Viruska Zika oo ka mid ah virusyada halista ah ayaa markii ugu horeysay ka dilaacay qaaradda Afrika. Cudurkani ayaa inta badan saameeya caruurta yaryar, waxa uuna ka mid yahay virusyada koonfurta Mareykanka intoodii badan ku faafsan. Hay-adda caafimaadka adduunka ayaa sidoo kale sheegtay in ay tahay markii ugu horeysay ee viruska Zika lagu arkay qaaradda Afrika, waxa ayna sidoo kale walaac ka muujiyeen in uu sii faafo viruskani. Waxa ayna hay-adda ugu digtay dadka ku nool qaaradda Afrika in ay ka digtoonaadaan viruskani. Abbas Araghchi oo ah wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda ee Iran ayaa sheegay in dowladda Iran ay diyaar u tahay in ay la heshiiso boqortooyada Sacuudiga ayaa ka mid ah dalalka ugu muhiimsan Islaamka, ayuu yiri Master Araghchi, asigoona hadaladiisii sii raaciyay in ay Sacuudiga ku khaldanayd go'aanadii ay horay xiriirka ugu jartay dalka Iran. Hadalkani uu wasiir ku-xigeenka arrimaha dibadda Iran uu ka dhawaajiyay ayaa imaanaya kadib markii ay is-afgaran waayeen laba wafdi oo ka kala socday labada dal. waxaana intaasi noogu dhamaaday warkii saacadlaha oo aad kala socoteen BSS Radio oo ku hadla afka boqortooyada soo jireenka Soomaaliya. ciduu dhaafana waxa ay dib uga heli kartaa barta aynu ku leenahay internetka oo ah www.bssmaininsomalia.com.